isna waxaan leenahay wasaaradana ku soo dhawow waxaad soo ogaataa wasaaraduna laba albaab bay leedahay mid laga dalaco iyo mid laga baxo intaasoo wasiir baa imika inta yareed muuse xilka hayay ka baxday كل شقاوة وسارد كل أما كحجين نبي ما عصبان مدير ما كنت شغالين مكان عشان سنة مالها ملا أيوة وسارد كانت شو تجديد كيتن الرماية جودة أيوة مركا شقوين كواس كمية وسارد وكل وكلام دوين أنت كورسنا دول دوسان كشغالين مدة دوري ملا على تصل دول استيتو سنوات مالها وسارد واحد شو جي استيتو ملا على تصل دول شو جي دول دوس أنت أنا ما أمرهم مكان إيطاليا الهيد بقى iyagu way sii sagooteen waa mahadsan laakiin anu waxaan kaga tagayaa reer sanaagna maqashiinaya reer barigii war mar hadaa saddexdii kursi u sareeyay galbeed oo wasaaradii isugu timaadeen wixii ah haysaanay mashaariic iyo beeraha barigii geeya waxaan ka ogaaday wasaaradda horumarinta beeraha muddadii aan joogay in jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay suurtagal ka ahayn in wax la beeraabaan jirin bad iyo beriba dhulkeenu inuu yahay dhul wax beer wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Maxamed Xabane ayaa xilkii uu kala wareejiyay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaraddaasi munaasabadda xil wareejinta oo lagu qabtay xarunta wasaaradda beeraha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka hadlay agaasimayaal marasaabka gobolka Maroodijeex wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska iyo mas'uuliyiin kale waxayna sii sagootiyeen wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda beeraha Maxamuud Warsame Jaamac oo hadda u dalacay wasiirka horumarinta kalluumaysiga iyo xeebaha waxayna soo dhaweeyeen wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta beeraha Cabdinaasir Caydiid Maxamed waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa aynu u hambalyeynaa wasiirka cusub ee naga tagay naga dalacay Maxamuud Warsame oo runtii nin aad u firfircoon oo isku reer ceer gaabana aanu ahayn waxaan leenahay ilaahay istaag xilkii anaha ku asturo waa lagu dardaarmay Maxamuud Warsame wasaaradda beeraha aad uga warhay baa lagu yiri waa halkaas ka dalacdeen dardaar waa inaga inta Cabdinaasir wasaaraddiisii koowaad ma horto waa tii saddexaad baan u maleynayaa intaan aynu joogno uu soo maray daakhiliga waxay naga horreeyay gaadiidka iyo jidadka tiisa saddexaad buu marayaa isna waxaan leenahay wasaaradana ku soo dhawow waxaad soo ogaataa wasaaraduna laba albaab bay leedahay mid laga dalaco iyo mid laga baxo intaasoo wasiir baa imika inta yareed muuse xilka hayay ka baxday Maxamuud Warsame waa ka dalacay marka insha Allah albaabka dalacadana adna kugu ducaynaynaa aad isaga warhay aad bay wasaaraddu u nasiib badan runtii waa xaflad qiimo badan wasaaradda intaan joognay dee dhowr wasiir ku-xigeen baa isbedelay marka waxa weeyaan runtiina wasaaraddu dee qiimo badan bay leedahay wasiir ku-xigeenada soo marayna qiimo badan bay lahaayeen runtii markaad eegto xagga wada shaqaynta markaad eegto ixtiraamka iyo maxaan ku rahdaa nidaamka wasaaradda si ay u ilaalinayaan marka iyagana aad baan ugu mahad celinayaa wada shaqayntii wanaagsanayd ee ay mas'uuliyiintu ay la lahaayeen wasaaradda iyo siday u hogaaminayeen wasaaradda intaa marka laga yimaado runtii hadal badan looma baahna waxa weeye sidii uu sheegay Ibraahim waa laba arrimood uun sabootin iyo soo dhaweyn weeye wasiirka cusub ee wasaaradda horumarinta wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha mudane Maxamuud Warsame Jaamac oo runtii muddo 6 bilood iyo xogaaya nala joogay runtii waxaan leenahay waan ku sabooteynaa si kaliya laaba ayaan ku sabooteynaa waxaanan ilaahay kaaga baryaynaa in xilka lagu dhiibay ilaahay uu ku fududeeyo oo ilaahay kugu asturo ayaan ilaahay ku baryaynaa bisha Ramadaan fadligeeda insha Allah taala mudane wasiir waxaan ku leenahay de wasaaradda saa la sheegay waad ka dalacday oo waad ku dalacday wasaaradda yani yaad ku dalacday taasi waxay keenaysaa inaad wasaaradda mar walba qalbiga ku hayso oo inaad wasiir ka fogaanad noqonin wasiir haddii aad aragto fursado wasaaraddu leedahay oo meel ka socda dee kaalintaada ka qaadato ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala taadana ilaahay ha kuu fududeeyo wasiirku intaas baan Maxamuud odhan lahaa
wasiir ku-xigeenka cusub ee hadda nagu soo biirayna cabdinaasir caydiid maxamed waxaan leenahay wasiir soo dhawow waan kugu soo dhaweynaynaa wasaaradda wasaaraddu waa wasaarad ballaaran runtii oo saa la sheegay 600 bay imika shaqaaluhu ku dhow yihiin xaruntan hargeysana maanta waxaa jooga 300 iyo googo baa jooga shaqaalaha jooga oo rag iyo dumarba leh intooda badanna waa aqoon-yahankii beeraha waxa weeye waxay u baahan yihiin hogaamin bay u baahan yihiin waa dhalinyaro iyo u badan yihiin waa aqoon-yahan waa dad u baahan in la hogaamiyo oo diyaar u ah inay lagu shaqeeyo qof walba intuu joogo intii ilaahay u qadaray buu meesha joogaya xilkuna waa meerto wasiirkana haddii la yara warwareejiyo kolba wasaarad la geeyo halkaa waxaa ka muuqatay in la jecel yahay baa ka muuqata marka aniga naasir caydiid ba waana la yar warwareejiyaa maxamuud waxaan isku haysanay anaabka wasiirkaa hor noqonaya iyo anaa kaa hor noqonaya si serious ugu odhan jiray wallaahi inaanad iga hor noqonay marka waxaan sii waxbuu sii yar ogaa moogtahay marka iminka halkii muranka naasir caydiid baa soo geli doona maxamuud baan murmi jirnay runtii labadaba saxaab aad iyo aad isugu dhow oo walaalaa baanay naasir caydiid muddo dheer baan walaalahay maxamuudna ilaa intuu qaranka ku soo biiray isagoo ina yaroo ejkiisu naga yaryahay haddana walaalaanu hayn ilaa siyaasadda maalinta cagta soo saar maxamuud waa nin siyaasadda isagoo kaba guudoo dhaadheer halkaa jooga xidhan buu siyaasadda kusoo biiro cararaya welina sidii buu cararaya cararkii waa kaa wasiirnimadii ku gaadhay oo orodkuu moogti intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo hadda loo magacaabay wasiirka wasaaradda horumarinta kalluumaysiga iyo xeebaha Somaliland iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Cabdinaasir Caydiid Maxamed waxaana hadalladoodii ka mid ahaa farxad weyn bay tahay saaka 18 bishii 3aad 2024 inaan ka tegayo oo wareejinayo xilkii wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta beeraha oo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu magacaabay 12 bishii 9aad 2023 aanan la wareegay 17 bishii 9aad ee 2023 muddo ku siman 6 bilood iyo 22 maalmood oo aanu wada shaqeynay shaqaale weynaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha iyadoo aanu soo wada shaqeynay laba wasiir muddada 6 bilood ah wasiirkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha Cabdulqaadir Iimaan Warsame iyo wasiirkii cusub ee markaa la soo magacaabay maanta wasiirka ka Axmed Maxamed Habane iyagaasimo guud aadan waan uga mahadcelinayaa dhammaan shaqaale weynaha wasaaradda iyagaasimo waaxidada iyo bahda beeraleydaba muddada kooban aan wada joognay sidii hufnayd ee fiicnayd aan u wada shaqeynay ay soo dhaweeyeen anigoo markii hore beeraley baan ahaa laakiin aanay reer Hargeysa dadka wasaaradda beeraha joogay aanay moodaynin ceergaabay sanaaga ay beera leedahay laakiin aanu wasaarad beeroodu aan hore uga shaqeynin muddadii aan joogayna waxaan ku celcelinayay shir walba aan isugu nimaadno war sanaagiyo barigu beeraleeyihiin qorshaha ku dara oo beeraha bariga wax ka siiya sidii uu halkan ka sheegay agaasima waaxda qorsheyntu wasiiradii faraha badnaa wasaaraddan soo maray marka laga tago wasiirkii koowaad oo aan beeraban bariga abuurnayn ayuun baan u malaynay inuu reer Sanaag ka ahaa qofkii labaad ee ka soo jeeda gobolka Sanaag ee wasiir ku-xigeenka noqda ayaan ahaa wasaaradda beeraha way ugu adkaatay oo turjumaadeedii baaba siiqada beeruhu xitaa ay ku wada hadlaan inaanu aad isugu fahanno war beeraha ceergaabe geeya ayaanu muddo dhan aanu ku murmaynay waxaan ka ogaaday wasaaradda horumarinta beeraha muddadii aan joogay in jamhuuriyadda Somaliland meel aanay suurtagal ka ahayn in wax la beeraaba aanay jirin bad iyo beriba dhulkeenu inuu yahay dhul wax beeris leh laakiin maanta waxaad moodaa wasaaraddii inay galbeed isugu guurtay oo labadii wasiir ku-xigeenkii iyo wasiirkii agaasimihii guudba sidii halkan bara saab ka sheegay ay reer galbeed noqdeen waxaan agaasimo waaxidada iyo bahda beeraleyda iyo wasaaradda iyo mas'uuliyiinta aan saaka kaga tegaya iyagu way sii sagooteen waa mahadsan laakiin anu waxaan kaga tegayaa reer Sanaagna maqashiinaya reer barigii war mar hadda saddexdii kursi u sareeyay galbeed oo wasaaradii isugu timaadeen wixii ah haysaanay mashaariic beeraha barigii geeya taas waa dardaaran oo xabadaasaan idinka tegayaa waxaan kale waan aad ugu faraxsanahay oo ilaawi doonin muddada yar ee kooban aan joogay sidii wanaagsaneed ay soo dhaweeyeen ay la shaqeeyeen aniguna ma hilmaami doono oo waan xasuusnaan doonaa
wasaaradana waan ku soo noqon doonaa waan ka warhayn doonaa sababtu ka tahay shalay walaalaanu hayno oo wada shaqeynayna maantana wasaaradda kalluumaysiga aan tigo wasaaradda wax soo saaro ilmaadeer baan noo meel fog maanu kala tegin anigana wax soo saarkii kalluunka la iga doonayaa baan idinku mahadnaqayaa ama aan idin hambalyenayaa shaqaalaha wasaaradda beeraha iyo si fiican ay soo dhaweyseen aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah muddo dheerna waan soo shaqeyn doonaa haddii Ilaahay dhaahdo gudoomiyaha gobolka ayaan isna aad ugu mahadnaqayaa waan hor shaqadii horisay qoray dawladda leedahay 1997 buu shaqadii horisay qoray isagoo maayirka Hargeysa 7 sanadood ama 6 sanadood barta waan wada shaqeynay waan ag joogno marba dhinacaan ka joognayba marka waa ninkii shaqada qoray ninkani waxaan ku dadku qoray ilaa imika waxay gaadhayaan malaha qaar waxa arkay 27 qoray anu qaar 27 qoray baa lagu arkay maalin weyn marka intii naga fadhiyeen kala leeg buu qorayaa waxaan ku taas isagu iska ahaanaya ya 27 qoraa jooga ee macallimiinta qoray isagoo inta meel haystay marka odaygu waxaan ku oray waa geedismay soo saas mu iska ahaayad kale taa dhibano qorayaa marka isaga aad baan ugu mahadnaqayaa talabaad waxaan leeyahay wasaaradda aad iyo aad ba mahadsantihiin kulli shaqo wasaaradeed kulli ama ku xigeenno ama cusba mudiir baa ka soo shaqeynay markay ilaa 5 sano meelaha malaha ayuu wasaaraddan kala joogay tagaadiidka iyo tan arrimaha gudaha iyo marka shaqooyinku waa isku mid wasaaraddu kale way kala duwan inta ka horeysana dawladda hoose ka shaqeynay muddo dhowr iyo malaha 20 sano dhow 8 sanadood meelaha wasaaradda waxaan joogay 8 meelaha 20 sanadood aan joogay dawladda hoose intaana maamul ma ka Italy lahaydba markaan ugu yaraa ku xashiishka guraan maamulayay xashiishka xaadha ayaan maamulayay marka kulli shaqada maamulka iguma cusbo iska garan doona haddii la yiraahdo muddo dheer inuu wada shaqeyno insha Allah laga yaabaa aniga maanta wax kale ima yaalaan waa mahadnaqoon idin mahadnaqo wax kale meeshan ka wadhay ma jirto sidii dadkan waxay cun lahayn wasaaraddan balga doonaya si horaba loo sheegay marka waxay u baahan tahay kulli inuu cagafiyada dalka shacabka leeyahay wadanka jooga raafno kulli inuu iska wax u qabso wax ku soo saarno waa inaan xoog iyo xeelad isticmaalnaa haddii la yiraahdo wax soo saar inuu guntanaa saamka hor loo sheegay ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay Professor Aadan Cabdilaahi Sheekh Muuse oo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland oo markaasi xilkaasi rasmi ah ugu kala wareejiyay wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha iyo wasiir ku xigeenka cusub waxaana hadaladiisii ka mid ahaa farxad gooni ayay tahay inaan saaxiibkay walaalkay maxamuud warsamo jaamac aanu sii sabootino uguna hambaliyayno dalacsiinta iyo horumarka uu sameeyay soona dhaweyno wasiirka cusub Naasir Caydiid waxaan leeyahay ku soo dhawow wasaaraddaadii ku soo dhawow madaxdaadii ku soo dhawow waxqabad iyo horumar iyo shaqo hufan intaa ka bacdi soo dhaweyn xaflad kasta oo sabootin iyo soo dhaweyn waxa weeyaan duca inagu waajiba inaynu u ducayno mas'uuliyiinta dhammaan inuu Ilaahay xilka u fudeediyo kuna asturo cadaaladna sameeyaan intaa ka bacdi waxaan leeyahay walaalkay wasiir Naasir Caydiid wasaaraddu waa wasaarad shaqaale iyo madax iyo mas'uuliyiinba midaysan insha Allah biidnillaahi tacaala waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi fiican walaaltinimo leh